waxaa si caafimaad ah oo lagu guuleystay u dhacay qaliinkii Maryaan Mabuya gabar Ugandhaysa oo kalideeda siisay Cabdiraxmaan Maxamed nin Soomaali oo kamid ah jaaliyada Oslo Rikis Hospital Oslo ayaan ku booqanay anigii asxaab kale xilli Cabdiraxmaan iyo Maryaan ay u diyaar garoobayeen in ay isbitaalka ka baxaan oo ay ahayd maalintii ugu dambeysay wax walba waxay ahaayeen wax Ilaahay qadartiis ku dhacay wax anaga sameeyna ma laakiin alxamdulillah waxba okay ahaayeen kilidana sida dadka moodayeen oo qofka inuu dhimanayo ma aha waa operation aad u fudud 2 saac bar u qaatay iyada iga horeysay subaxdii 8 gashay anigana 12 ka galay kadibna wuxuu qaatay 2 saac ilaa 2 saac bar wiil muslimana iyo ninkii qalay xaalad wallahi okay ilaa hadeertan waxaan dareemayaa caafimaad aad u badan alhamdulillah family friends everyone we imaaday full support dad badan oo fiican ducadii doorta dad iisu duceeyay adduunka dhan kulli dacwad waa la aqbalay taas ana ku garanteen kulli dacwad waa la aqbalay qoftaan horta this is Maryam waa gabadhan walaashay Maryam gabadhii kilida isiisay mahad weyn ay mataqaanaa Soomaalida ay ku leedahay qof muddo is garanayna way dadku waxay u maleeyaan in hadda isbaranay waa qof aan muddo badan saaxiib ahayn over 10 years friendship 12 years to 12 sano shaqo badana soo dhaxmartay wax badan fikradaas dhaafsanay laakiin kilida markaas kugu imaanay waji kale ahayd runta markaa sheegana wadno waxay haysataa caadi ahayn qoftaan cajiib ah. No, I'm feeling surprisingly very well. I thank God. Allah ayaa mahad iska leh waxa kale oo aan aad ugu mahad celinayaa dhaqaatiirta iyo nidaamka wanaagsan ee isbitaalada Norway dabcan waxay ugu qaadatay muddo 2 sano ah inaan arintan u diyaar garoobo markii aan ogaaday in saaxiibkay walaalkay Cabdiraxmaan uu xanuunsan yahay oo uu kali u baahan yahay maanta walaalkay waan isag fadhinaa isaga oo caafimaad qabo haddii aad og tahay qof walaalka ah saaxiibka oo u baahan caawintan oo kale ah aniga waa ii jeedaa 5 casho kadib isbitaalka waan ka soo baxay oo sida la moodaayo ma aha dabcan cabsi way jirtaa laakiin waa wax fiican walaalka inaad badbaadisay. So I just thought let's help each other, and I think if you have somebody you care for, or if you know somebody that's struggling with any type of kidney problem or other organ problem, just share it. Dare to look for help because there is help there, and it can go much smoother than you could ever imagine. Xasan Saciid Raasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway.